arrin aanad shaqo ku lahayn baan madaxa kuu geliyey markaan wax soo xaqiiqsaday ka raalli ahow laakiin labadii nine kale aan magacaabay iyaga xaal siin maayo way ma istahilaan marka inaad haddaad maqasho ama haddii yaryarkaaga ay dhegaystaan way ku soo gaarsiin doonaan gaarna waynu wada hadli doonaa intaa markaan ka soo boodo fadlan ila dhegaysta videogan arrimihii privateka waan ka baxayaa tan waa mid guud waa tii baan usoo noqonayaa ina khuseynaysa deegaanka iyo dalka iyo dadka oo dhan laba arrimood baan rabaa saddex arrimoodba video baan midba in yar ka tusaya halkan waxaa ka hadlaya ninkay Muuse Bixi Cabdi la oran jiray oo ka sheekeynaya 26 Juun ee beritoole ah haddaba ana mar magac dhabay 26 Juun waxaan idin leeyahay dhammaantiinba intii dee waqooyiga Ingiriiska ku jiray haystay oo 60kii ka kacay 26 Juun waa maalin muqaddasa waa maalin ku habboon in la xuso waa maalin aad iyo aad qiimo weyn u leh inkastoo qoladan beesha dhexe damcayna qiimaheedii dileen oo Aydin May iyo Balaay waxayna garanayn ay ku qaldeen oo hadda aan 30 sanadood iyo dheeraad baan cidiba xusin iyaga laftooduna waxaad moodaa inay hadda dee xaqay u soo noqonayaan iyo reality-gii waayo dee wax la dhoodhoobo been oo gacan ku rumaysid oo iska dhintaa yaa dhicis weeye dhicisuna wuxuu dhintaa inta birta loo soo wato ama mindida loo soo wato marka bal hadda dhegaysta yacni taariikh been ka waranku waa mushkilad weeye yacni u fiirsada hadda hadalkiisa u fiirsada haddaan idin daarayaa fadlan dhegaysta waa Muuse Bixi oo hadlaya waad ku aragteen dee videogiisa meesha haddaad daawateen haddii kalena haddaba daawada si fiican u dhegaysta waa kan asalaamu calaykum waay allahuma salli calaa maxamed inaad si fiican u dhuuxa 250 qof baa tiina saan u dhegaysta ninka hadalkiisa waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ummadda reer Somaliland meel kasta oo joogaan baa dunida dacaladeeda iyo inta dalka gudihiisa joogtaba berrinta haddii alla yidhaahdo waa 26 Juun 58 sannadood ayaa ka soo wareegay maalintii aynu xornimada ka qaadanay dowladda Ingiriiska ilaahay mahadii halgan dheer 8 sano ku dhawaada oo ummadda reer Somaliland ugu jirtay xorriyadda okay halkaa ma maqlayseen wuxuu yidhi dagaal weyn iyo ololo weyn iyo xornimo doon aad u dheer oo imisa 80 sannadood baa loo soo maray qoodhiin iyo xeradii intiina maskaxda leh ee caqligiisa cabiri karow halkaa maxaa idinka muuqday halkaa waxaa inooga muuqdaan idin sheegaya inuu ka taariikh been warramayo taariikhda Soomaalida kacdoonkii daraawiishta markii aanu bilownay awooyaashaya bilaabeen sayidkii naxariisteena allah siiyay uu bilaabay dagaalkiisii ugu horreeyay wuxuu ahaa 1895 buu ahaa 1900 iyo wuxuu ahaa 1895 kii buu ahaa imise sannadood baa hadda laga joogaa miyaanay 100 iyo dheeraad ahayn 130 sannadood weeye hadday ka badnayn ninkaas wuxuu ku magacaabay ilaa 80 sannadood ilaa 80 sannadood waa intii isaaqu ku soo biireen baa laga yaabaa markii daraawiishtii jabtay garansan markii daraawiishtii jabtay ee isaaq yiraahdeen waa kala xorriyada oo taana aynu kula jirnay halkaas ka bilaabaya taariikhda isagoo aasaya tii daraawiishta isagoo aan marraba odhanayn oo ka xishoonaya inuu afka ku dhufto daraawiishtii xorriyaddii usoo dirireen ayaa u sabab ahayd 26 Juun 60kii u fiirsada wuxuu afka ku dhuftay 58 yes 58 hadda waa laga joogaa 58 laakiin wuxuu yidhi halkan baa loo soo maray 80 sannadood total waa beentaasi waa dad uu u diidaya creditka magaca ayuu u diidaya dadkii iska lahaa ha socoto maanta meelo badan ma reerka ka ataagayaa waa kana daroon sii daayay inay hesho ayaynu maalintaas ku guulaysay gobonnimada ay Somaliland heshay waxay ahayd tii ugu horreysay ee dal Soomaaliyeed ama dad Soomaali afka Soomaali ku hadla ay qaataan way jireen
qaybo ka tirsan dalalka kale sida Ethiopia iyo Kenya laakiin sida Djibouti iyo Soomaaliya labadaba waxa ka horeysay Soomaaliya wuxuu ahaa qaran ku dhisan xuduudihii isticmaalka kaga tagay Afrika ay Afrikada ku heshiisay 1964 maantana ururka Afrika dhisan uu ku dhisan yahay Soomaaliya waxaan doonaynaa qodob kale halka ma ku haysaan ma taqaanaan sida hadalka loo analyze gareeyo sida xogta loola soo baxo ama between fine lines la yiraahdo ama fine prints wuxuu ku leeyahay Somaliland qaran be sidee baad qaran ku ahayd maxmiyad baad ahayde it was Somaliland protectorate British Somaliland protectorate qaran imisaad ahayd ma 4 cisha qaran lagu noqdaa 4 days ila 26 buu calankana siiyey July 1 kii kala xamarna Talyaanigu naga siiyey waa la isku darsaday wuxuu ku leeyahay xuduudadeedu mid loo yaqaano tii isticmaalku dhigay bay ahaydo ee la isku waafaqay 64 waqooyiga xagu joogay Somaliland miyay jirtay 64 ilaahay baan idinku dhaarshay yani marmar ba qoladan isaaq iyagu dhabarka iska toogtaan yani doodaada waa laga fiirsadaa waa laga soo baaraandagaa 64 waxa la isku raacay Soomaaliya inay markaa mid tahay oo sida ay tahay loo daayo xuduudka lagu xisaabtamo meel ay ku qoran tahay Somaliland ba gaar u taagan xuduuda waan ka waay meel walba intaan idinka maqnaay internet iyo balance research ku jira marka waa waxay dadka ku waaleen waa waxay shicibkooda ku waaleen waa waxay iyagu ku waasheen waa hallucination waa waxaan jirin 64 xuduudkii waa la qaaday waqooyi iyo xeey baalkii bartaas ku baabay waa la isku darsaday unity baa la sameeyay way join gareeyeen marka lagu ma dabaqi karo waa wax la tuuray oo qashinka lagu tuuray dib loo soo celin karo 64kiina it was a part and parcel Somaliland tanad sheeganaysa waxay kamid ahayd Somali weyn bay kamid ahayd Republic of Somalia Somali Republic marka de Somali Republic oo jirta ma jirin 64kii in la yiraahdo 60kii Soomaaliya sida ahaan jirteen ayaa lagu xisaabtamaya haddii taasi maalinta dhacday automatically maalintaas kala go'naan lahayd bal u daawada hada aqliga foorare lagu sheekaynayo iyo dadka masaakiinta xayawaanka ee aan oranayn war hadalka naga shaanay ama naga macnee wadadka waxaan u jeedaa beesha isaaq ee ku waashay go'itaan iyo xuduud baa jiray ayaan gaar u la hadlaya kan waa madaxweynihiini waa ninkaad u doorateen inuu idinku aqoon badan yahay waa ninkaad u doorateen inuu idinka saaro mugdigo iftiin idin raro and he's lying at the same time taariikhdii uu ka been warramaya horta intiina badan may la socotaan hadalkaygu saanameedu ku dhacaya waxa aan sharaxayo may la fahmaysaan may la socotaan ilaa yar may la socotaan billahi calaykum mar haddaan wax sharaxayo waa inaan sidii macallinka oo kale u sharaxaa waa inaan qodob hadalkooda u qaadaa si idinka laftiina dad badan oo yaryar baa jira oo dhowaan dhashay oo wax badan moogan oo iyaga laftooda iga jooji qofka London iyo UK iga soo wacay for ugu jiro waad aragtaa stop that it's called interruption ima soo wacaysid laakiin waa interruption tani marka joojiyana ka tuurin hadhow wad iga soo wici doontaa kan kale ee WhatsApp-ka please fam wax important ayaan ka sheekeynaya waaye Musa hadana ku sii deynaya hadhowna meel kale aynu galaynaa oo kaaji hadhowna waan idin siin doonaa Musa nabadda dawladda fadhiyada oo sanadood oo sir iyo rafaad iyo dhimasho iyo waxbarasho la'aan ku jiraan uma sii baahan qolaado kale oo beer dagaalada tukara ka dhacay ee Cabdiweli ka soo kiciyay isagoo doonaya inuu 2 sano lagu kordhiyo Puntland maamula waxa la yaabaa shalay prime minister baa ku haasooda 2 sano ku dhamaanaya dadkii ii kordhiyay ku dhamaanaya okay Allah inta hore sabab aan sheegaya ku jooji shalay markii Siilaay uu ku kordhisanayay dhowrka sanadood markuu kalshaale abaarayo leynayay oo kanina waa gudoomiyaha xusbiga kulmiye kama hadlayn mana oranayta
عبد الولي بو هذا كنت الماما يا تابع تو إن شاء الله فقال أنا أرجع لي يسيب بضاعة لا يسوى أو ما جنيه I can't answer this أذرك يا أشياء أذرك يا دو مغلى يا أذر كن كلام هذا ذكره كي كلا النبى كيس كسي أذرك عليه كاي قصقرع ينسوا جوا حوجا هذا البان وضايع عندما يسده واي فويس ميل هاي استناش واي الكين مري اوكي عبد الولي بيبقى كردستان يا ماشي سيدا درتيدو دغالكا waa baaraya Muuse wuxuu ka boodaya oo dafiraya meesha tukaraqlaya yiraahdo oo Puntland ay haysatay ilaa yoomadin ilaa mal tukaraq waxa ku soo duulay Muuse Bixi Puntland oo aan dagaal u geysan ku soo duulin waxna u sheegan iyaga ku soo duulay waatay habeen cad intay dagaal ku qaadeen meesha qabsadeen adduunka wuxuu ugu sheekaynayaa Puntland bay ugu soo duushay adduunku dee caqligiisu qabaa incident kasto adduunka ka dhaca wuu ogyahay qolada Puntland lafteedana dee waa inay dacwadooda hagaajistaan oo runta u sheegaan adduunka inuu isagu soo duulay waayo wixii baa documented ah ay maalintii xasan geerish gardarada ku soo galay meeshuu rabay inuu ku soo maro hubkiisa iyo taargada Soomaaliland iyo wax walba taasaa ka sii horeysay talabadii xigtayna ciidan bay keeneen oo meesha ku qabsadeen markaa Soomaaliland baa soo duushay may soo duulin Puntland garaal la taqaana way kuwa ma oolin waxa lagu dhameyn karo war maxay hagaajinaa أنا قرر ما يروح الله ودك الله ما يقدر كلام شوية تذكر عقل وعيه أنا وحضره على ربيع أنا وحن حسنا سيدي أفريقيا لساتها حدكي إنجليزي تياري يا نور حدكي إنجليزي تياري لحدا كنا حدكي نوبا وربنا لا تعرف تبيها بسوحلة وترجع على الصوادس وأنا تعيد عن بسمة نقول له بدو بيدا oo wax dhisnay oo aqal oo dadkeena biyasiinay oo caafimaad siinay oo nabad siinay oo hal inta waxa ay sheegay waxa dheer cadaawad kale oo dusha naga eegarayo ay isku jeedo cadaawad kale oo isku dusha naga eegarayo farmaajo dadgalaya uma arka guud iyo wanaag ilaahay waxa kale jiray inuu tasalnato inuu hanuuniyo in dhibaatooyinka guud ahaan Soomaaliya dhexdeeda ilaahay khayraadkooda iyo islaamka siiyo meel joogan bay dhibatahay hadii Soomaaliya hana waxa hadaas alla ma ku ogiyo niyadda ma ka taafkaad kale waa afkar baa ku dhisan caalamkooda baa aad baan uga xumahay nimanka maanta xamal ka talaya talooyinka ay qaadayaan oo ah dagaalka dadka si kala fogeynaya ee cadaawada si abuuraya ee una qabatintu koob ka tahay una qabatin dagaalka eriyada uu kamid yahay waxa soo naga warkaysan waan ka baxaysan Somaliland waxaan sheegay dhammaan dadka Soomaaliya ku hadlana Somaliland waxay doonaysaa nabad intaasan kaga baxaya ninka isaga waaye halada gabadhana dhageysta gabadhana isaga iyadu waa ilmaadeer waxay ku jirtaa xusbigan la yiraahdo wadani xusbigan argar xajkii habaryoonista way ku jirtaa laakiin iyadu ma dhalan wanaag habar wala ma garat bal hadda yana dhageysta فاطمة سعيد بالله يانا دغيست هذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan ummadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan aan horta marka ugu horeysa ku yiraahdo ciid mubaarak kullu aam antu bi khayr ilaahay sanadkiisa khayr iyo bashbash iyo barwaaqo iyo aqoonsi ba ilaahay haynagu gaarsiiyo aqoonsi haddaan in yar idinkaga taabto muxuu safarkii aan u baxnay iyo wuxuu daarnaa horta marka ugu horeysa wuxuu ahaa safar la naga casuumay dhowr meelood oo ay ka mid yihiin Berlin, Brussels, Sweden, Denmark iyo Germany afartaa wadan baa horta aanu ka helnay invitation rasmi ah Berlin markii aanu tagnay runtii shirara aad iyo aad u qiimo badan baanu ka qayb galnay maadana ay shirarkaasuna aad u fara badnaayeen aniga gudoomiye Cabdiraxmaan Ciro waanu isqaybinay isagu wuxuu tagay
shirkii ay qolooyinka AU-du ay iskugu timi anna waxaan tegay kii shirkii baarlamaanka European Unionka. hadda u fiirsada shirarka ay sheeganayaan maxay tiri midna waa European Union midna waxay tiri AU iyo wixii sifada ay uga qayb galeen baan anigu garan waay. number 1 dawlad muctarif maaha oo cid u yeedhanayso oo meel laba dee kursiga calanku leh. number 2 waa xusbul macaaradkii ee maaha xusbiga xukunka haya iyadii cirraba ma garad dadkan ay leedahay waanu is aragnaynaa dad meel laba ka socda ma runta waa waxa Hargeysa lagu maaweliyo dad baa iska jooga waqooyigaas aad moodeen iska darogeysan yihiin wixii loo sheegay ba iska qaata oo leeyahay inna lillaah xorriyad bahashi maxaa la ictiraafkii hayaay geedkan dushiisa aanu soo surnay in la soo dajiyo bay u baahan tahay intaasaa lagu wadaya 5-6-7 sanadood yacni reerku reer quusta maaha reer runta faysgaraya maaha Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa waxaad doonayso haddaad weydo waxaad ka fursan weydaan la yeelaa waxaa laga xidhay optionadii doorashooyinkii kale waxa weeye weligood iyo allahood plan A mooyaane plan B iyo C midnaba may lahayn reerkan xitaa jabhadoodii markay soo dagaal galeen aynu siyaad barre iyo dowladda dumin ay u soo galeen laakiin ka bacdi maxaynu samaynaa wallaahi way garan waayeen iyo billaahi 3-4 sannadood bay wali ku jireen oo dawlad la dhisi kari waay oo waxba lagu heshiin waay oo qabyaaladii wixii oo bal waa kan because they never had a plan B. waxaan u malaynayaa taana inay Soomaalida inta badan la qabaan yaanan iyagu dusha ka saaran waana fair noqdaa moogta